بسم الله اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. sidaa qoraalka idinka muuqda waa su-aaliyo jawaabo. gabar ayaa 2 jeer isku xigta waxay soo qoraysaa su-aaliyo jawaabo kaligood hadheen waxyaabaha ka hadlaysid noo sheeg. waxyaabaha ka hadlaya sababta u sheegi karin waa su-aaliyo jawaabo ay wixii way badihiin 20 su-aalood jawaabahoodii ma meesha ku soo qori kara waa maya. okay haddaad lacala dhibsateen waxaa sameynaa hordhacooda idin sheegayaa su-aalaha aan ka jawaabay su-aalaha la isoo weydiiyey aan ka jawaabi raba su-aalaha wixii yina soo koobi doonaa si idinkana fikrad marka hore baad u qaadataan oo muuqaalka idinku dheeraanin haddaad anficaynin iskaga baxdaan muuqaalka oo dhanba. waxaa ka hadlayaa dabaasha qofka kuriyooda dabaasha macnaheeda caayda qofku caynaayo milixda mise cusbada qofka kuriyooda qofka kuriyooda saliga salaada lagu tukado qofka kuriyooda saliga nabiga calayhi afdal salaatu wasalaam qofka kuriyooda sujuuda iyo roobka qofka kuriyooda dahabka laga xadaayo mise dahab uu helaayo sidoo kale qofka kuriyooda waxba macaan asigoo cunaayo qofka kuriyooda orodka qofka kuriyooda ee badda iyo maxay ahayd badda biyaha badda oo yacni okay qofka kuriyooda nuujinta adoo ilmo yar nuujinayo qofka kuriyooda suuratul maryam. su-aalahaasi ayaa halkaa kaga jawaabaya marka iyo wixii kaloo haddaan idaafsanahay waayo weli yani way soo socdaan inaan su-aalaha ka jawaabo. haddaad i weydiinaysaan isbuuci yar xaggaa ku maqnaa iga raali hadahay canaaninina. isbuuci hore fasax yaraan aaday wadanka anigaan joogo bishaan dhamaadkeeda bisha haddaan soo dhaafay dhamaadkeeda fasax yar ayaa jiray goobaha waxbarashada sidaa darteed waxaan aaday safar yaroo dalxiis ah iyo arrimo kale hore aan soo dhammaysanay iskugu jiray. alxamdulilah ilaahina way nabad keenay. idinkan waa idinka raaligelinaha inaan idinsii sheegin oo fasaxaas yar aan aaday. qofka ugu horeeyo gabadha waxay tiri baa waxaan kuriyooday tiri anigoo oynayo oohinta riixun maahan qofka hadduu kuriyooda asigoo oynayo yani bilcakas waxay tilmaamaysaa faraj khaasatan qofka diiqadaysan mise korbaysan. laakiin gabadha riideed waxyaabo badana isku qasqasan riyada markay saan oo kale noqoto waxay u badan tahay inay tahay qarow mise nolol maalmeedkaaga mise waxaan riyo aanan ahayn. laakiin wallaahu yaclam keliya ani haddaan ka hadlo oohinta waxay tilmaamaysaa oohinta maxuma haddaynan ahayn mid baroora qaylo ah oo yacni dhibaato aan wadanin keliya ilin socota mise cod yaroon la maqlaynin ay tahay. oohinta oo sidaas oo kale waxay tilmaamaysaa faraj bacda kurba. wallaahu yaclam wallaahu yaclam laakiin waa ray wanaagsan. sida qoraalka idinku muuqda gabadha waxay leedahay waxaa kuriyooday 3 habeen isku xigta caruur ciyaalka marka noocyo badan ay kuriyootay waayo qoraalka waxaa ka horeeyay codad waxay tiri mar anoo nuujinaay mar iyadoo yani ilmo haysato mar iyadoo cunug haysato cunugan ay matalan yani ee rabin oo kale. almuhiim muhiimada arrinta haddaan isku soo koobo gabadhaan guursanin hadday kuriyooto awlaad waxay tilmaamaysaa bishaarooyin badan oo kamid ah guur. ilmaha sidoodaba waxyaabo badan ay tilmaamayaan mar qaar waxay tilmaamayaan humuum iyo mashaakilo ciriiriyad adduunka. hadduu cunugaasay tahay cunug foolxun cunug qaab daran cunug caateysanoo isha urooneen ilmaha laakiin intay iga quruxsiin oo wanaagsiin oo cayilsiin kubcasiin oo yacni ay ishooda nuurayso labiskooda fiican yahay qaaray tilmaamaan. waxay leedahay gabadha riyo kale waxaa kuriyooday wiil cunug yar anoo gacanta ku haaya aan isla wiilka ayaa dhalay kabacdin waxay tiri cunugii wuu weynaana waxay racani 2 jir camal oo soo noqonaa oo isoo fiirinaya qoslayaana jeclaysanay. cunuga hadday gabar ahaan lehed kasii fiicnaan laheyd cunuga reed ku arkaysa hadday gabar ahaan lehed. laakiin haddana maxume waxay tilmaamaysaa mas-uuliyad yar arrimo xoogaa kuugu cuslaanaya laakiin kabacdi insha allah ilaahay farajkaaga furaay yacni wax yar humuum yar maaragta culeysyo yar laga yaabaa in hadda aad la nooshahay laakiin maca istikfaar iyo sadaqooyin inuu rabbi arrintaasaytay faraj iyo xalka ugu sameynaa. wallaahu yaclam. su-aasha xigta gabadha waxay tiri waxaa kuriyooday
qof dumar ah oo igu waaninaysa inaan ku tukado suuratul maryama. waxay tiri caadi ahaan cishaa waa ka hor seexday waa usoo toosi rabay. horta inuu qof kugu waanina arrin diini ah ficlan waxay tilmaamaysaa arrin wanaagsan oo ah inuu rabbi ku jecel yahay. laba maadan way tilmaamaysaa inaad ficlan dariiqa saalaxa ku toosan tahay, laakiin wax ay kaa qaldiyin waxay ahaataba. okay nasiixadan aan dhahe waanadaaniiti waa ficlan waano kulli waxaa qaldan li'aano hadda waqtigan hadda lagu jiro oo kale salaadaha way isku dhow yihiinba, khaasadan dadka wadamadan Yurubta jooga ma u baahno in oo salaad loo seexdo lasoo tooso li'aano waqtiga hadda wuu dhow yahay. rubama adiga ka seexan jirtay ficlan aad waxaas leedahay seexa u soo kac, laakiin meeqa jeer li'aano riidaaday ka muuqataa meeqa jeer aad intaad seexatay aad soo kicinba oo salaadii saas kaaga tagtay. walaalayaal waxa ugu muhiimsano anaga hadaa muslim nahay waajibka ugu muhiimsan bacda shahaada طبعا يعني طبعا horta muslimiin aan nahay alxamdulilah. hataa qofka gaalka bacda shahaada waxa ugu muhiimsan laga rabaa waa salaada. marka rubama abaayo wax kaa qaldiin xagga salaada saasay riidu egtahay wallahu yaclam waxa iska sax. aadna waxaa tiri waxaan ka naxsanaa suuradan dheer. suuratul maryama keligeeda micnay leedahay, micnada insha allah soo turjumaya, laakiin suurada dhaadheer suuradoo dhan laguma tukanayo. yani hal bog waa ku tukan kartaa. maxay ahayd kasoo qaad hadda suurad oo 3 bog 4 bog ka saabsan ayaad istiri ku tuko. waxaa ku tukan kartaa yani ragcada koowaad 2 bog mise hal bogaad ku tukatay, ragcada labaad ku tukan kartaa. yani waa kala googoosan kartaa, hal mar inaad ku dhameysid muhiim maaha. suurado kale xoogaa ka dhudhubo waxyarna ka dhaadheera soo qaadan kartaa, samaadaat alburuuj iyo cabasa iyo camo iyo يعني maxay hadaab ilaahay quraanka ku bara quraanka taqaanid mararka qaarkood waqti fiican haysatid inaad iska akhrisid way fiican tahay ilaa dhowr suuradood oo dhaadheer yani suurad dheer. laakiin hadda adiga is leedahay anaga shaydaan ab kuley naga shaqaysanayeen alle waqti ma haysid rubama adiga ahayd suurada gaagaaban aad ku tukataa waxaa tiri suurad waa ka naxsanaa. horta isku soo duduubo fasarka riidaada shar ma tilmaamayso, waa inuu rabbi ku jecel yahay oo haddana wado wanaagsan kula rabo wallahu yaclam. haddii aan usoo noqdo suuratul maryam adoo riida ku dhegeysanaa mise aa ku aqrinaa mise aa ku maqleysid le sida hadda gabadha ku riyoota oo kale, suuratul maryam guud ahaan maxay tilmaamaysaa? waxay tilmaamaysaa faraj, inuu rabbi ku gaarsaaqi doono wax adigaad ku faraxdid oo weliba u badan waxaa sheedinayiin wax adag wax adigaas leedahay hadda maba dhici karto, mustaxiil maaha. la-aano haddaanu soo noqono suuradda dhexdeeda mucjisooyinka ka dhacay suuratul maryam nabi zakariya calayhi salaam ayuu rabbi ilmo ugu bashaareynaa ilmo yani inuu ilmo helayo inuu dhalaayo xilli qaasatan asiga u quustay. sidoo kale nabi ciise calayhi salaam hadlaayo suuratul maryam yani suuradda dhexdeeda. waxyaabaha mucjisooyinka loo ku jiro waxaa waaye inay maryama maxay ahayd nabi ciise hooyadiis dhalaysa aaba la-aan. marka suuradda maadaama ay sidaa wax mucjisooyin ugu jiraan mufasiriinta riyooyinka waxay leeyihiin wax adig kuuga adkaay mucjiso ahay inuu rabbi kuuga arsaaqayo wallahu yaclam. qofka xiga gabadhan riiday soo su-aashay isma lahayn rii noocan oo kale lagu su-aali doonaa ma filaynin li'aanu ma xasuusto inaa rii noocan oo kale weli liisoo weydiiyey. gabadha waxay tiri waxaa ku riyooday anigoo lay caynay tiro 2 jeer dadka caynaan ay taqaan caadi ahaan waxay tiri cadaabaa naga dhexayso. caayda lagu caynayo waxay tilmaamaysaa adiga guuleysanaysid iyo garab iyo horeen iyo sareen adigaa helaysid. calaa cakiskeeda qofka ku caynaya riyada dhexdeeda waxay tilmaamaysaa dullinimo caadi ahaan inuu la kulmayo nolosha camaliyaan dullinimo rafaad iyo mashaakila. riyada maxay adigoo lagu caynaya waa riyo wanaagsan, ma aqaan sababta iisoo mari weyday riyada noocan oo kalea anigana qalbigay weli kuma soo dhicin. ma xasuusto janankii hore inaan kaga hadlay, laakiin 8 sano ku dhawaad waa hadda intaan jananka fasarka riyooyinkan ku jira riidaa ma u malaynaya inaa mar qof soo su-aalay. almuhiim waa riyo wanaagsan. gabadha xigta waxay tiri
5 sano caruur ma dhalin, gabar yarna waan ahay. waxaa kuryoodii tiri qof milix albaabkayga hortiisa ku shushubay. Riyada walaahi markaan dhegeysanay waa qoslay. Abaayoy, riyada waxay u egtahay inay tahay min ashayaadiin oo shaydaan micatalaan wax xun kuu sabiray. Leano caadi ahaan milixda shaydaankaasaaba necab. Matala haddaas leedahay waa lagu sixray mise il waxaa jiro. Milixda waa shayga kaliya shayaadiinta ee dhibtaba ay necab yihiinba. Marka riyada waxay u egtahay horta ma ogtiin horta walaalayaal anaga cadowgeena bini aadanaan ka dhiganaa. Maanta marka lagu dhaani cadow aa leedahay qof bini aadan loo niiday ku soo dhacaa. laakiin cadowga xaqiiqada ah oo ilaahay noo sheegay inuu shaydaan yahay taas dhan baa xisaabta waan ka saarnay ma ogtiin. hadda markaysaa qof dhahay cadowgeyga shaydaan waaye. haddii farna xanuunto waa lay ilaystay, waa lay xasday, waa lay sixray, yaa waxaas laygu sameeyey bini aadan. waxaa la aaminsanahay bini aadan, laakiin rabbi subxaana watacaala hal marna qur-aanka ku mariyeen bini aadana cadowkuga ah. bal wuxuu yiri ina mu'minuuna al-ikhwa, kan muslimka waaba walaalka. marka shaydaanka dhabtaa yani cadowga dhabtaa waa shaydaan. marka wallahu yaclam abaariid waxay ogtahay inuu shaydaan adigana maadaama iska xanuunsan tahay welweli wax iska kaa haysta inuu sabir xun kaa tusaay dad qaar adiga aa ka shakisan tahay. kolley way jiraan, iska jiraan. saraxa wayna xanuun badan tahay qofkaas oo ulaad raba inuu ulaad waayo. waan ku dareemi karaa saa darteed rabbi subxaana watacaala waxaan ku weydiinaa ulaad caafimaad qabta baaryaala saalixa la rabbina bir u noqda adigana beeri kuu noqda diintoodii dalkooda ummadoodana anfaca. rabbi ha kuu gaarsaa qabaayoy. shakigana iska daa haddaa tahay qof shakiiliya shaki iska daa. haddaana shakiili aadan ahayna midixda aan kuu fasira. midixda sideedab kheyray tilmaamaysaa, kheyr walba ayay tilmaamaysaa. cusbada yacni arrin xun ma tilmaamaysa. marka cusbada ma xumo riyadeeda wallahu yaclam xabiibati. laakiin riyada waxay ogtahay inuu shaydaan sabir xun ku tusaayo. weliba dad axbaab aa isku tihiin inuu kaa maxay ahayd sabir xun kaa tusaayo. subxaana allah, yacni meel kastoo naga soo weerara, meel kasta iska daaya masaajidada dhexdeeda oo naga soo weerara, salaadii oo naga soo weerara, qur-aankii oo noo diidaya, silata raximkii iyo wax walba sadaqadii oo naga horjooga. subxaana allah. marka xabiibati qalbigaa haraaraacsiinin. gabadha riyadeeda waa 2 riyo. 2 riyan aaday muhiim u yihiin, iyadan muhiimay u yihiin, anigana waxaan u arkaa inay muhiim yihiin. laakiin mid kamid ah isoo xasuusin insha allah luuqan kaaga jawaabaya. sababtoo ah riyooyinka qaar ani meelahan kuma sheegi karo, ma aqaan sababta. riyooyin badan aan ka hadlinaa jiro haddaad xasuusataan, meelahan kama hadli kari. tan koowaad aan kuu fasira insha allah oo ah adoo dabaalanay. dabaasha culimada siyaabo kala duwan ay uga hadlaan. culimo qaar waxay ku leeyihin la dagaalanka nolosha culus ay tilmaamaysaa, maca inuu dhammaadkeeda inkastoo ay tahay riyada riyo wanaagsan. waxay ku leeyihin adoo dabaalanayo waxaa weye inaad la jihaadaysid nolol adag, xayaato adag, wax adag adiga markaasaytaa ku sugan tahay. yacni noloshaas adag ma ahan le inaa wax la jirto, waxyaabo badan oo adagaa jira bini aadanka soo wajahi kara. inaad ficlan aad la xarbinaysid, la dagaalamaysid, laakiin aad ka guuleysanaysid. leano dabaasha qofka wuu dabaalana wuu socda, yani biyaha wuu la dagaalamaa. maxay ahayd inaad yani aad farij ilaahay kuu furaay. qaarkoodna waxay leeyihin inaad dabaal riyo ku aritid waxay tilmaamaysaa isbedel nololeed oo wanaagsan. waxay leeyihiin waxay tilmaamaysaa irsaaqad, maca inuu fasirkii hore wuxuu ahaa la dagaalanka nolosha soomaha. isla naftirkawaas waxay leeyihiin dhammaadkeed waxay noqonaysaa faraj iyo kheyr badan iyo raaxata baal. wallahu yaclam. gabadhan waxay tiri waxaan riyo ku arkay sijaayada salaada oo qurux badan oo goglan oo aan isku diyaarinay inaan salaad ku tukado. waxay tilmaamaysaa inaad tahay marwo wanaagsan. leano hadduu ninku riyooda riyadan oo kale waxay tilmaamaysaa xaas wanaagsan inuu rabbi ku arsaaqay. hadduu markaa qabana uu yahay inuu haysto xaas wanaagsan. sidoo kale waxay tilmaamaysaa arsaaqadii u dhawaasho rabbi. walaalayaal horta waxyaabaha diin ku saabsan oo dhan aragtidood aaday wanaagsan tahay, sida masaajidka, qur-aanka, salaada, tasbiixda, tusbaxa lagu tasbiixsadoo kale. marka riyadaad ku riyood waxay tilmaamaysaa maadaama ay nadiif ahayd ee quruxsaneed, u dhawaasho rabbi, nadaafad, tahaarad iyo dhowrsanaan.
wallaahu yaclam waa riyo aada u wanaagsan kolley inuu rabbi ku leeyahay waad wanaagsan tahay waana ku ogahay mise ducooyin mise riyooyin waxyaabo adigaa rabbi weydiisatay inuu rabbi kuu saqaraayo wallaahu yaclam intaasay tilmaamaysa. gabadhan waxay tiri garooba ahay waxaan ku riyooday anigoo wax mamacaan cunaay wixii hadda waxay yihiin ma sheegi kar laakiin riyada dhexdeeda mamacaanka wuxuu ahaa yacni magaciisa noociisa waan aqaanay laakiin markaa hurdada kasoo toosayna wax macaan cunaay basaan ogahay wuxuu ahaa inuu xawlo ahay inuu wuxuu ahaa maqaan muhiimadda maaha walaalayaal horta marka qofka riyoodo maaragtaa waxyaabo ayaa waxaa ah ramsi wuxuu yahay waxyaabo ayaa ka dhex muuqda riyada shay ayaa ku jiro shaygaasaa fasir u baahan laga yaabo maanta inaad waxyaabo badana ku riyootid waad riyootay suuqaad aaday waa kasoo adeegatay waa ka imaaday qofaa isla jirteen qofaa isla hadlayseen qofaa wax kala gadanayseen waxaa macquul ah hal shay kamid ah inuu fasir u baahiya ku jiro marka muhiimad waxaa waaye hadda riyadan marka laisku soo kokoobo muhiimad waxaa waaye mamacaanka inaad wax macaanaad cunaysay wax macaankaad cunaysay waxay tiriyaa gabadhan garooba ahay waxa macaankaad cunaysay waa guur insha allah sidoo kale waa hadal wanaagsan waa kelmad hadal wanaagsan aada maqli doontid rubama aad usoo samirtay hadalladan rubama aad yani muddo waqti kuuga qaadatay inaa yani wax aad sugaysay hadal wanaagsan dhaqan wanaagsan soo dhaweyn wanaagsan waxay doontaba hadda arrin wanaagsan aad la kulmi doontid sidoo kale guur way tilmaamaysaa isbedel nololeed way tilmaamaysaa wallaahu yaclam mise sidoo kale hataa siiradaada si fiican lasoo qaada way noqon kartaa inay dadka wax wanaagsan ay ka aaminsiin adoo wax mamacaan cunaay guud ahaan waa ray aada u wanaagsan wallaahu yaclam gabadhan waxay tiri ninkaygaa wuxuu ku riyooday tiri asigoo ordaayo riyada dhexdeeda orodya gabdhow aniga riyooyinkiina igu badnaay raggiina ma igu soo darteen haddana walba moobiladooda sabskaraabka soo saara iska kaftamaya orodka muxuu tilmaamaya ninka hadduu ku riyoodo asigoo ordaayo waa micnooyin badan ayuu tilmaamayaa oona wanaagsan waxay tilmaamaysaa inuu juhdi iyo dadaal iyo karti badan gelinayo arsaaqad xalaal si uu soo dhacsado mashruuc mise haddii wax jiraan tijaara ka guuleysi iyo dadaal badan inuu sameynayo iyo waxay kaloo tilmaamaysaa xaj iyo cimro hadduu asigu ku tala jiro inuu rabbi waafajin doono wallaahu yaclam laakiin waa ray wanaagsan ninka hadduu ku riyoodo asigoo ordaya waxaa waaye asigoo wax muhiima hadaf oo nolosha ka leeyahay oo gaari doono oo hiigsanaya oo dadaalna ku bixinayo yani mahayaa isoon dadaalin dadaal ku bixinayo wallaahu yaclam waxaan kaloo halkaa kala hadlaya dad qoraal soo qoraayo oo qoraalkani aada u qaldan yahay qoraalo waxaa jira yacni qalad oo caayi waxaa kama wado qoraalka ma saxno si rii lagugu soo fasir waa inaa qoraalka saxdaa haddaad doontaan af carabi waa soo qori kartaa walaalayaal qofkii far soomaaliga ku dhibaa xataa haddaad doontaan ingilish waa soo qori kartaa waa jajabsan doonaan laakiin qoraalka far soomaali markaad soo qoraysaan haddaadan aqoonin oo ciyaar qurbo aad tihiin oo far soomaaliga ku dhibaayo cod soo duuba khaasatan dadkaan soo qaadna qaybta facebooka cod soo duuba waayo haddii qoraalka qaldan yahay fasirka riyada ma saxmayso yani fasirka riyada maa wax iska dhadhe maahan alaabalaabe maa waa wax mas-uuliyad iyo waxaa waaye wax weyn yani waxaana u maleeyay waan ku fasiraa ma noqonayso laaleel ana dembiga iga soo gaaray idinkana fasirkaa rabtiin midiin soo gaaray sidaa darteed marka mar walba qoraal soo qoraysaan ani qoraalo qaar waa isku daya inaa hagaajiyo aan fahmo yani micnihii laakiin qaar waxaa jira aan la fahmaynin sida hadda gabaraan la hadlay kudhi iyadana luuq waa kala hadlay way arki doontaa codkayga cod soo duuba haddii fasirka haddii qoraalka ku dhibaayo haddaa carabi taqaaniin carabi xooga ugu fudujahay inshaalla carabi soo qora mise hataa ingilish soo qora mise soomaaliga iska soo saxa haddaanan ahayn cod soo duuba hadee mideed kale dad badan aan cod jecleen inay soo duubaan ma aqaana sababta intaasaan idiina socodsiinaa walaalayaal waayo ani riyooyin badan aan kasoo tago waxaa jira qoraalka qaldan yahay qofka xiga wiilkaa wuxuu yidhi waxaa ku riyooday anoo suuqu socda ayaa badda wadidaan socdaa badda isku bedeshay markaa dhinacaan isdhaa u dhaaf isdhahaba waa bad inta dhaaf markaas dhahaba waa bad yacni qof wadada laga goosta isbaaro loo dhigto fahmi kartaa badda sheekadeeda waa sheekada badda qofka bad waa sheega keliya marna wax aada u wanaagsan tilmaanto marna dhibaatooyin kale oo daboolan kuu muujisa wiilkaa wuxuu yidhi waa xanuunsanahay
waxaan kaloo idinka codsanaa qoraalkiisa inay akhrisaan, waayo arrintaa badda ku xigta waa u fasira laakiin kuma dhawaaqaayo. sababtoo youtube horaan ku waayay aniga. youtubekeyga hore haddaa xasuusataan hal barnaamij aan ka sameeyey qoladan ayaa youtubekii ku waayay, kana uu cusubeyna waay marow. laakiin kuley asigana wuu fahmaa, qof walba akhriistan wuu fahmaa cidaha kale aan ka hadlaay. badda waxay tilmaamaysaa horta xanuunsanaa yiri, xanuunkiisa wuxuu yahay ma sheegin sida qoraalka idinka muuqda, laakiin waxaa muuqata xanuunkiisa inuu yahay ruuxi. wiilkan komitigiis caloosha igu huri, waayo wuxuu yiri wax badan ayaa fasir u raadinaya, riidaa waawaay fasirkeed. insha allah ilaahay waxaa weydiisanaynaa fasirka sida ay tahay kuugu fasiro oo rabbi i waafajiyo. awal shay badda waxaa waaye, haddii badda mararkay wanaagsan tahay sida hadda ugu riyootay maaha. markay hadda badda ay isbaaro kuu dhigata mise ay kusoo horgoysa adan dhaafi karaynin, waa culeysyo dhibaatooyaa la nooshahay. mufasiriin badan waxay dhahaan haddaa baddaba ku riyootid ruqya sharciya waa inaa raadsataa. midaadi isku aqrinaysid maaha, shuyuuq ruqyo kuugu aqriya raadso, kuugu sameey kuu ruqyo, lianu xanuun weyn ayaa jiro. xanuunka intuu kuugu sii weynaan lahaa ilaahayna caafimaad ha ku siiyo. markaa ka bacdi wuxuu arkaa wiilkaniti markuu badda sida suuqa badda uga soo jarto dhibaatadan kale dadka nimankan oo kala kulmay. nimanka haddaa rey ku aragtay maxay tilmaamayaan, mase dumarkooda hataa qoladanba haddaa rey ku aragtay waxay tilmaamaysaa khayaano, dhagar, lugooyo, cadaabo, sixir. waxaa ku dhahay sixir maadaama adigana xanuunsan tahay oo badna ay ku jirto, way iska cadaa riidaadan waa ruuxi, xanuunkaagan waa ruuxi. marka kolley rubama ku saameeyey sixir. badda sidoo kale waxay tilmaamaysaa qof qawi ah, qof awood leh. adiga meesha uu kaasoo gaarib ilaaha og. kolley culamada ruqya sharciya markaa u tagtid xanuunkaaga wuxuu yahay kolley waad ogaan doontaa. siday ku ogaanayaan maaqaano, laakiin shuyuuq dad fiican oo qur-aanka dad ku daaway u tag. dad oo waxaa jira waxyaabo kaloo qaldan, shirki waxaa sameeya ha u tegin. dadka qur-aanka ruqyada dadka ku daaway u tag. wallaahu yaclam. laakiin rubamaa sixir ku saameeyey, waayo nimanka kaleo riidaa ku arkaysid riyadooda ma wanaagsan. inaad riyo ku aragtid qaabab fiican way jiraan, laakiin qaabka haddaad ugu aragtid ma fiicno. wallaahu yaclam. riyadaa waxay ku wanaagsan tahay waxay tahay inuu rabbi ku jecel yahay, oo rabbi intaanu cadeyma uu ku siiyey ee dhibaatadaadii meesha laga haysta iyo xalkaagu wuxuu yahay. wallaahu yaclam. rabbina ku caafiyo. sida qoraalka idinka muuqda gabadhaanid waxay tiri waxaa ku riyooday anigoo akhrinaya saliga nebiga, saliga ataxiyaadka ku jiro calayhi afdal salaatu wasalaam. aragtada saliga nebiga waxay tilmaamaysaa arrin aada u wanaagsan. waxaa ka mid ah iimaan, inuu rabbi kugu arsaaqaa iimaan, maadaama maxay ahayd riyadeeda kalena ay tahay riyo wanaagsan sida qoraalka idinka muuqda. waa gabar saalixada rabbi ku xiran siday ka muuqato. maasha allah, tabaaraka allah. aan anagana u dhahno maasha allah, ilaahayna ku siyaadiyo. waxay kaloo tilmaamaysaa faraj iyo riyo rabbi kuu rumeynayo, duco mustajaab ah. wallaahu yaclam. waxaa kaloo tiri waxaa ku riyooday anoo salaad shukri camal, waxa yani ilaahay u sujuuday sujuud shukri. waxay tilmaamaysaa ficlan inuu rabbi arrin ku siinayo oo ku sujuudi doontid, waayo waxay tiri roobna wuu da-ay anoo sujuudsan. rubama adiga aad duceysatay mise aad ku duceysan doontaa arrimo oo rabbina ka aqbalay. riyadaada horta iska soo dadaro waxay tilmaamaysaa kheyr badan, inaad tahay qof rabbi u dhow. haddaadan ahayn inuu rabbi kula jecel yahay wanaag, yani maalintay ahaataba wadada toosanaa kusoo dhaceysa, laakiin kastay u muuqata binaad asxaab dikri aad tahay. waxay tilmaamaysaa inuu rabbi riyo kuu rumeynayo oo ficlan aad mahad celin doontid, yani matihid adoon munaafiqa, aad mahad celin doontid rabbi riyo kuu rumeynayo. waayo waxaa daliil ah sujuuda oo ahayd sujuud shukri, iyo sidoo kale roobkan waxaa waay ilaahay riyooyin kuu rumeynayo, duco mustajaab ah, u dhawaasho rabbi, arsaaqad, faraj bacda alhumuum, sidoo kale sujuuda. intaas iyo in ka badan ay tilmaamaysaa iyadana. wallaahu yaclam. sida qoraalka idinka muuqda gabadhaaniti waxay tiri hooyo ah laakiin leema qabo, yani in qof laga dhintay mise gabar nin kala tageen. maaqaan kala tegitaanka dadka qaar way dhibsadaan, waa ilmey. calaa kulli xaal
gabadhan oo kale aragtida riyada dahab anoo iga dhumiyay tiri oo waaysanaya dahabkii. kabacdi waxay tiri nin ayaa dahabkii soconay qoraalka waa daabanka yani waa ka akhrisan kartaan almuhiim si ay yani muuqaalka u dheeraanina buufsiina. taa waxay tilmaamaysaa fursadooyin ama iska dhumisay fursado fiican inay ku soo mareen aad ka faa'iideyso weydii laga yaabaa. dahabka dhumaayo arrintaas ay ka turjumi kartaa. waxay dahabka dhumaayo sideeda horta lama amaanin laakiin waxaa ka wanaagsan adoo dahab lagu siinayo dahab helay maadaama uu isla dahabkii u keenay tiri helitaanka dahabka mise siismada dahabka waa kheyr badan dib inay kugu soo noqon doonaan fursadihii. waxay noqon kartaa calaa dariiqa qofkaasiiti ninkaas ku siinay wadadiisa ay ku noqon kartaa mise fursadii adiga aada waysaneed yacni fursadii oo adiga iska dayacday meel kale kaa soo gali kartaa. rubama isla ninkaasiiti hadduu yahay qof aad taqaanid mise hataa haddaadan ahayn qof hadduu yahay qof aad adi aqoonin oo qof cusub oo noloshaada kusoo biiri doona wallaahu yaclam. laakiin waxaa weeye marka hore maxayd inaa fursado iska dayacday fursado kusoo mareen adiga aad heesi weydi mise qiime weydi mise calaf baana ku ahayn. mararka qaar waxaa hadoon calaf ku ahayn waa ku qasbantaa inaad gacantaada aad ku dayacdid. calaa kulli xaal isku soo duduuba riyada waxay tilmaamaysaa kheyr badan dhibaato badan aan dhahay murugo yaryar kabacdi insha allah inuu rabbi farij ku furaayo isbedel nololeed dhacayo oo quruxsan. wallaahu yaclam. adigana xafududaani haddii fursad kusoo martoo kale ha noqonin qof degdega. waxaa sameysaa salaad istiqaaro tuka. fursadaa waxay noqon kartaa mid shaqo mid guur mid dhoof waxay doontaba ha ahaata. fursad markii kusoo martay shay markaa u aragtay shayga inuu fursad yahay hasliya waxaan ma dhamaystirna ma quruxsana saa ma aha. waxaa sameysaa ilaahay quraankiisa wuxuu ku leeyahay wacasaa an takrahuu shayan wahuwa khayrun lakum. saa darteeda yacni ka istiqaarayso rubama gadaal uu kaaga fiicnaan doona shayga. wallaahu yaclam. walaalihii facebooka gabar ka mid ah su-aashaanayti waxaa hadda kahor inaa kasoo jawaabaa umaleyna maaqaano iidama dib usoo noqotay mise qof cusub maaqaan. gabadha waxay tiri anoo ilmo yarnaa sunuujinay ayaan koriyooday gabaraha ahay saa camal ani tan waa kasoo jawaabay anaaba og laakiin haddaan kasoo jawaabin haddaas fasirkeeda ku siinaa. nuugmada ilmo yar adoo nuujinayo waxay leeyihin mufasiriinta riyooyinka waa riyo wanaagsan waa guur waa farxad soo dhow. mararka qaarna waxay dhahayaan istikfaar badi waayo waa mashaakilo yaryar insha allah laakiin laga gudbayo. hadduu matala ilmaha yar aa naaska nuujinaysay caadi intuu naaska nuuga mise ka dhargay waa riyo wanaagsan. wallaahu yaclam. sideedaba inta badan waxay dhahaan waa guur iyo qaar waxay leeyihin mataqaanaa haddaa kuriyootid adigoo cunug yar naas nuujinay gabartaa weli guursanin inuu rabbi kuugu bashaareyna waa guursan doontaa waana dhali doontaa weliba. ilaahay yani ulaaduu kuuga arsaaqi doonaa. dad waxaa jira intay guursadaan ilaahay waxba ulaad siinin. marka taa waxay kuu tilmaamaysaa leena inuu rabbi kuugu bashaareynayo ulaadna waa kuuga arsaaqi doonaa. wallaahu yaclam. riyadan anaa si qaas liisoo weydiiyey gabaraan saaxiibanahay ayaa dhinaceeda iga timid qofaas soo su-aalay almuhiim. riyadan waxay tiri gabadhaanayte habeen ayaa wiilaa xiriir lena istiqaaro ka tukaday. markaa ka istiqaaristee waxaan ku riyooday wiilkuu iska keendhitiraayo inuu arkeyna iska dhigaayo. riyada noocaas oo kale markaa aragtid arrimo muhiimay xambaarsan tahay micnooyin muhiim ah. xaqiiqada waxaa leeyahay dadku way xanuunjisaa laakiin ma disho. riyadanayda haddaa ku riyootid bacdi weliba istiqaara way wanaagsantahay aad ka istiqaaraysatay. riyadan waxay tilmaamaysaa ficla inuu qofkaasayta isbedel ku imaanayo. isbedelkaana maaha mid wanaagsan mid inuu gaabsanayo fogaanayo maxayd adiga mise guurkan uu ku qanacsaneen mise aan daacadba ka ahayn yacni arrintan xiriirkan waxay ahaataba. waxaa kaloo cad inuu ficlan uu bilaabay waayo maadaama aadba ka istiqaaraysatay inuu isbedel aad ka dareentay sidaa darteed aadba istiqaarada kugu kaliftaa macquula. marka riyooyinka noocan oo kale midaas way tilmaameen. mararka qaarna riyooyinka waxay tilmaamaysaa axaadiisa nafs maadaama anaga dumar aan ahayn shaki badanee shaydaana nala xiriiro axaadiisa nafs ay noqon kartaa. laakiin haddaan idhaahno waa riyo runa intaasay tilmaameen. isbedel qofkaasay yani mise xiriirkanba markii hore daacadnimo kuma dhisneen yani qofkaan daacad ma ahayn. wallaahu yaclam.
halkaasaan kusoo koobaya muuqaalkanidi laag saara sheer garee asxaabteena la wadaaga isbedel badanaa arko wixii su-aalaha qaybta commentiga oo youtube-kaad iga soo qoreysaan wixii su-aal qaas ahna habeen sabtiga soo galay ayaan facebook soo galaa insha allah meeshaan kulmayna wassalaamu calaykum